habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada xarunta wararka ee dunida ee BBC London qodobada barnaamijka caawa ugu waaweyn waxay kala yihiin bulshooyinkii ayuu isku xirayay jidka cusub ee Kenya iyo Ethiopia oo si weyn wax uga bedelay nolosha dadka ku nool magaalada Moyale ee ku taal Sohdinta in ka badan 1,000 soo galooti ah ayaa maalintii halis u soo galiyay naftooda xeebaha Liibiya ciidamada ilaaladuna ee xeebaha waxa ay gubayaan doomahaasi si ay u yareeyaan qulqulka soo galootiga waxa kale oo aanu idin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee tiknoolajiyada ee toddobaadkan iyo click waxa mar lagu yeeri jiray meesha aan sharcigu ka jirin ee bahalgaleenka ahayd meel ay ku hardamaan burcadda xoolaha oo ay gacanta ku hayaan jidka gobolkaasi ee isku xira Ethiopia iyo Kenya laakiin hadda jidka cusub ee halkaasi laga dhisay ayaa xaalka bedelay oo ka dhigay magaalada Moyale meel camiran jidkan ayaa soo gaabiyay waqtigii safarka ee Nairobi iyo xadka oo hadda ah maalin halkii uu ka ahaa 4 maalmood waayadii hore Cabdiraxmaan Bidaan ayaa ka waramaya waa tan magaaladii Moyale oo mar ahaan jirtay meel laga guura ah oo runtii aan waxba ka soconin iminkana waxay noqotay magaalo camiran oo ku taala xadka Kenya iyo Ethiopia u dhaxeeya oo noqotay xarun ganacsi oo weyn dawlado kala duwan ayaa ku fashilmay inay horumariyaan wadooyinka cusbitaalada iyo iskuulada ku yaala magaaladan Moyale taasi oo keentay in dadka deegaanka ku nool ay noqdaan dad faqiira oo dhibaataysan inja Kenya imetufaidi gaadiidkiiba wax sahlan noqday xataa khudaar ayaanu helnaa iminka fresh ah oo jaban tusaale ahaan kabashkii 200 shilin ahaa iminka waa 100 sana sasa tunaenda within one day tunatoka hapa Moyale tunaingia Nairobi within maendeleo tamanyo inakuja dhabtii horumar ayaan halkan ka aragnay markii hore way adkayd inaad aragto gawaari halkan ka baxda oo dalka oo dhan tagta hadda waan faraxsannahay waxaan dareensannahay inaan Kenya qayb ka nahay oo aanan ahayn dad laga tagay wax dhiba kuma qabno Ethiopia jidka ayaa nagu xiray aad ayaan u faraxsannahay waxa isbedelka weyn keenay ee Moyale ka dhacay waa wadada cusub ee la dhisay ee 500 kiiloomitir ah oo ay maalgeliyeen bangiga adduunka iyo hay'ado kale waxaana ay taasi keentay in ay noqoto in degdeg alaabadu ay isaga gudubto Moyale oo markaad safraysana safarkaagu ku noqdo mid dhaqso ah oo wanaagsan waxa kale oo intaasi raacay in magaalada imka noqotay magaalo furan oo ganacsiga isku weedaaranayo oo uu soo galayo mashruuca wadadan weyn ee Moyale ayaa wuxuu ka mid yahay mashaariic kaabayaasha dhaqaalaha oo waaweyn oo qorshaha ku jira oo ay ka mid yihiin in airport caalami la dhiso in la dhiso waddo tareemada ah in la dhiso dhuunta qaada shidaalka waddadaas weyn waa mid isku xiraysa Addis Ababa iyo Nairobi haddii aan ku guulaysano waxaan qabnaa inaan Dubai oo kale ka dhigi karno geeska Afrika saddexda dal ee jaarka waa Ethiopia Kenya iyo South Sudan saddexdan dal ayaa u arka mashaariicdan ballaaran ee ay iska kaashanayaan inay furo u noqon karaan in dhalinyaradooda iyo dadkooda shaqada la ay u abuurto shaqooyin loo baahan yahay taasi oo ay rajaynayaan in marka faqrigaasi laga baxo ay hoos u dhigi doonto qabaa'ilka mar walba fooda isla galaya ee isku dilaya xadadka saddexdaasi dal u dhaxeeya waxa lagu tilmaamaa muhaajiriinta ugu badan jidka ay ku dhintaan ilaa sanadkan badda u dhaxaysa Liibiya iyo Yurub waxa ku dhintay in ka badan 2,000 iyadoo rag dumar iyo caruur quus jooga ay doonyo yaryar ay ka soo buuxsamaan si ay Yurub u soo gaaraan kuwa ka gudbana waxa badbaadiya maraakiibta gargaarka bishii la soo dhaafay koox BBC-da ka tirsan ayaa hadaba raacday markab ay wateen dhaqaatiirta aan xuduud lahayn Cusmaan Cabdi Xasan ayaa ka waramaya waa muhaajiriin dhibaataysan oo jooga meel ka baxsan biyaha Liibiya shaqaale gargaar oo baaris iyo badbaado wada ayaa siiyey jaakadaha dabaasha dhabarkoodana waxaa ku soo dhowaanaya 3 nin oo wata doon dheeraysa motorka doonta muhaajiriinta ayay doonayaan inay damiyaan waxaanu saarannahay markab ay leeyihiin dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn hawshoodu waa inay badbaadiyaan nolosha muhaajiriinta ku safraya jidka dunida ugu dhimashada badan maalintan 1,000 muhaajiriin ah ayay 6 doomood ka soo bixiyeen shaqadayadu waa naf aan u badbaadinno waxaanu nahay hay'ad bini'aadnimada ka shaqaysa boliis ma nihin taas waxay u dhigantaa oo keliya haddii aanu aragno qof sita Kalashnikov goob dagaal kama dhigno qoriga waxaanu badbaadinaa waa naf
ilaalada xeebaha talyaaniga ayaa dab qabadsiiya inta badan doonyaha tahriibayaasha si ay hakad u geliyaan ganacsigooda ugana hortagaan inaysan kuwo kale soo gelin safarkan khatarta ah balse taasi ayaa khatar ku jirta kuwa dadka tahriibiya waxay beddeleen habkoodii iyagoo adeegsanaya doonyo tayadoodu hoosayso taasi oo halis ku ah nolosha muhaajiriinta kuwa ka gudbana way og yihiin inay nasiib badan yihiin sannadkan oo keliya in ka badan 2,100 ayaa ku qarraqmay biyaha liibiya waan badheedhay waxaan u badheedhay aniga og inay meeshu tahay khatar oo amaad dhimanaysid amaad noolaanaysid labadaasunbay ka dhexaysaa goordhow ayay tegayaan talyaaniga balse yurub lagama soo dhowaynayo hadda dawladaha yurub waxay xoogga saarayaan inay xidhaan jidka miditeraneyanka faahfaahin dheeraada oo ku saabsan warbixintaasi iyo kuwo kaleba waxaad ka heli kartaa boggayaga bbcsomali.com adiga oo ka galaya moobilkaaga bal markan aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka dunida ee maanta laba dalxiisayaal oo u dhashay Ukraine ayaa weerar toorey ah ku dhintay meesha caanka ah ee loo dalxiiska tagay ee ku taala Qurdaqa ee waddanka Masar sidaasina waxaa sheegay shaqaalaha caafimaadka ugu yaraan 4 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay waxaana loo xiray hal nin laba booliiska Israa'iil ayaa dhintay kadib markii 3 dable Carabta Israa'iil ay rasaas ku fureen iyaga oo joogay magaalada Qudus booliiska ayaa ku baacsaday raggaasi weerarka soo qaaday goobta barakaysan ee Xaram al-Shariif saddexdooduba waa lagu dilay halkaasi libaax gool ah ayaa la arkay iyada oo naas nuujinaysa haram cad meel Kenya oo ku taala waddanka Tanzania libaaxadan oo 5 jir ah oo la yiraahdo Nosit Kitok ayaa lala socdaa dhaqdhaqaaqeeda kooxaha xayawaanka xanaanayna waxa ay ka digayaan mustaqbalka haram cadkaasi yar oo ay sheegayaan inaanu kala cadayn maadaama libaaxa aanu saaxiibtinimo la isku haleeyo lahayn Shiinaha ayaa ku bixinaya ku dhawaad 1 trilyan oo dollar qorshe ballaaran oo kaabayaal loogu samaynayo in ka badan 60 dal madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa ugu yeeray mashruucan kii qarniga balse kuwa dhaliila ayaa ku tilmaamay in uu deyn uun gelinayo saaxiibada waddanka Shiinaha maanta waxay ku soo qaadanaynaa haddaba qaybtan galbeedka Shiinaha halkaasi oo wadadan cusub la doonayo inay wax ka qabato xiisada ka dhaxaysa muslimiinta laga tirada badan yahay iyo dawladda 200 sano Aasiyada dhexe waxay ahayd beerta dambe ee Ruushka Kazakhstan waxay heshay xorriyadeeda markii Soviet Union ku burburay balse luuqada Ruushka waxay ahayd luuqada ganacsiga welina way tahay waxaad hadda u jeedid waxa waaye jidka xiriirta oo shaqo ka socoto dhaqaalaha tartiib ayuu fiicnaanayaa dawladda shirkadaheeda waxay ka shaqaynayaan dibadda Shushiwen wuxuu dhismo ku wadaa wadada gaadiidka ee tareenka farsamada horumarsan ee Shiinaha ayaa ku habboon oo badqab u ah dadka safraya ee Kazakhstan haddii mashruucan si fiican ku socdo wuxuu tusaale u noqonayaa inta kale Shiinaha waxay sheegeen in shaqada ay wadaan inay faa'iido u tahay qof walba balse in badan shaqooyinka waxaa la siinayaa shaqaalaha Shiinaha ah dhisma ayaa lagu wadaa dalka bangiyada iyo shidaalka waa laga ganacsadaa laakiin dadka deegaanka waxay sheegeen inay u jeedin faa'iido sidaas u buuran xanaanad oo tuulo ku taalo ayaa waxaa laga dhigay hostel oo shaqaalaha Shiinaha ay seexdaan haweentan waxay ka ololaysaa wasakhda iyo shaqooyinka oo la siinayo ajnabiga waxay kala sheegtay inuu suuqa shidaalka ay aad u weyn tahay laakiin shaqooyin ma laho iyo dhalinyarada fursad ma haystaan waxaan rabnaa in si caadi ah aan u noolaano sida aan uga sheexin tuuladeena dadka Kazakhstan waxay ka cabsanayaan dawladda qaarkooda ayaa si qarsoodi ah waxay u sheegeen inay shirkadaha Shiinaha ay laaluush bixiyaan Dosim Satpayev wuxuu ii sheegay in dalalka Aasiya dhexe ay la tartamayaan Shiinaha iyo Ruushka China waxay la tahay inay khatar ku yihiin madax bannaanideeda
waayo Chinahu iyo ma aha Kazakhstan laba dal oo isu dhigma Chinahu waxa weeyaan Kazakhstan waxa u tahay meel yar marka waxay ka tirsan tahay siyaasaddan ballaaran ee Shiinuhu la rabo caalamka balse ciyaarta tartankan waxay bedeshay sida ay dadka u nool yihiin iyo mustaqbalka oo dalalka yar Shiinaha ku hoos jira xagga ciyaarahana tenniska Wimbledon ayaa la soo gabagabeynayaa hadda soo socota ciyaarta finalka ee gabdhahana waa Venus Williams iyo Garbiñe Muguruza dhanka raggana ciyaartoyga Croatia ee Marin Cilic ayaa finalka u soo baxay kadib markii uu ku soo jiiray 3 gacmood iyo hal ninkii Mareykanka ahaa ee Sam Querrey Roger Federer ayaa iminka la ciyaaraya Thomas Berdych oo finalka loogu soo baxayo ma laga yaabaa in Zlatan Ibrahimovic uu ka ciyaaro xilli ciyaareedka soo socda Mareykanka labada kooxood ee ka ciyaara LA ee Galaxy iyo naadiga kubadda cagta ee Los Angeles ayaa danaynaya inay qaataan weeraryahankan haddii uu go'aansado inuu ka tago Yurub Ibrahimovic ayaa laga yaabaa inuu heshiis gaaban kula sii joogo Manchester United markana waa qaybtii tiknoolajiyadda ee toddobaadka ee barnaamijka Click Cabdiraxmaan Bidhaan ayaa noo haya shirkadda cusub ee Mareykanka ah ee Hyperloop One ee uu ikhtiraacay ninka bilyaneerka ah Elon Musk ayaa waxay ku dhawaaqeen tijaabo guulaysatay oo ku saabsan khadka tareenka ee codka ka dheereeya tijaabadan ayaa lagu eegayaa nidaamyada kala duwan ee birlabaynta iyo nuugista hawada ee electronicska shirkadda ayaa rabta marka dambe inay dadkii alaabadaba ku gurto si tijaabo ah dhuumo cadaadiskoodu yar yahay oo kula boodaya balka waran guri soo baxaya markaad batar riixdo shirkad British ah ayaa soo saartay dhismayaal isku laablaamaya oo kolba qaab isu bedelaya ilaa 3 jeer oo kala duwan guryaha maaha sheekadu waxaaba loo isticmaali karaa cusbitaallo wareega garoomada kubadda dhaliyayaasha qorraxda tamarta iyo weliba birishyo shirkadda ayaa dhawaan rabta inay wax soo saarka bilowdaba koox ka tirsan jaamacadda Imperial College London ayaa fikrado laga helay caarada u bedelay in daroonadu ay sugnaadaan markay hawada heehaabayaan waxa lagu program gareeyay inay isku marmaan haddana ay si degan u taagnaadaan taasi oo siinaysa duulimaadyadoodu inay noqdaan mid aan leexleexan oo rasmi ah cilmi baadhayaasha ayaa rajeynaya inay tani awood u sii doonto in walxaha murugsan daayici tiri karaan mustaqbalka ma oohintii fogeyd baa mise waa oohintii dheerayd maya waa oohintii fogeyd ciyaarta fiideoga ah ee la yidhaahdo qofka ugu horreeya ha toogto ayaa qaybteedii shanaad la soo daynaya 2018 inta badan dhul kulul ayaa lagu matalaa qaybtii ugu dambeysay ayaa aqbuq dhalisay waayo waxaa lagu duubay miyiga gobolka Montana ee dalka Mareykanka ciyaarta cusub ayaa la yidhaahdaa magaceeda USA iyo ragga xun ayaa waxaa lagu bilaabayaa xer la yidhaahdo xerta iyo malqiyaamaha ciyaartan ayaa February aad ku shuban kartaa kombiyuutarkaaga ugu dambeyntiina laanta af Soomaaliga ee BBC toddobaadkan waxaan u dabaaldegaynaa 60 guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay BBC-da waxaanu haddaba idinkaga tagaynaa caawa qaar ka mid ah sawirrada shaqaalihii hore iyo kuwa hadda halkani waa London oo idinkala hadlaysa laba mawjadood oo gaaban 11 iyo 13 wararkan iyo kuwii ugu dambeeyba waxaad kala socon kartaa oo aad ka helaysaa boggeyaga bbcsomali.com inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeennii caawa waad ku mahadsan tihiin daawashadiinna intaanu mar kale dib u kulmayno dhammaantiyadaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan